يكي عالم كوسوغن كلا سعو كلا سعو كلا سعو Somali Public Radio إذاعة برشاد Somali Somali Public Radio SKR.FM I'm given the privilege to introduce him. Ladies and gentlemen, our hero, our Somali hero, Abdi Bile. Bismillahirrahmanirrahim. Subax wanaagsan. Soo lagu wanaagsan diyaar soo saaka orod looma aha. Inta aan Soomaaliga kula hadlayo aan iskaranayno waxa weeye waxa la yiri waa la ordaya dad fara badan baa laga bijiyo waxa la yiri bahalku waa orod maanta orod kaliya maaha waa la soconayaa waa la ruclaynayaa waa la taabacayaa in badan isacabkay tumaysa haddii inta sameyn kari weydo oo ka wada qayb qaadanayna aniga lafteedii dawaan gaboobay imka maanta socodka ku jira marka ku orodka ma qaar badan baan maanta socodka ku tartamayna marka insha Allah aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan runtii idin ku dhiirigelinayaa anigu intaan imi amaan organization kan ka fahmay inay yihiin urur aad iyo aad uga shaqeynaya danaha dadka Soomaaliyeed ee Minnesota degan isku dayay sidii ay u midayn lahaayeen community-ga reer Minnesota oo cid walba sababta haddaan halkan lagu midoobin oo aynan dadka wanaag tusin oo inagu wax qabsan oo inagu dhiiri gelin oo dadku halkan aynu la deganahay ina jeclaan xaqana la caawin maayo la xusuusan maayo laakiin dadka wanaagsan ee ina la jooga ee community-geena ka midka ah dhibaatada dalkoodii haysatana aynu kala qayb qaadano waa taa runtii loo baahan yahay anigu dalkii baan imanka ka soo laabtay runtiina anigu kulley warka badan waynu iska haynaa laakiin rajo badan baa jirta inta waxa wanaagsan sameynaysa baa fiican inta niyada wanaagsan baa fiican wax badan oo wanaaga baa jira ilaahay haynoo siyaadiyo dagul baan inoo rajaynayaa maanta iminkana waxaynu sameynaynaa u diyaar garoobaynaa inaynu warm up sameyno iskululays and then we're gonna be ready to go. نصيب تويسيا عرر الوداع إلى ناحي عالشقا عرر الوداع إلى ناحي عالشقا نبتدان نصيب تويسيا عرر الوداع إلى ناحي عالشقا عرر الوداع إلى ناحي عالشقا You know, the ARC is the only refugee agency that's based on Minneapolis that serves and have office in Somalia. Please give us a warm welcome. The ARC Chairman and the CEO, Daniel Warworth. Hi everybody, it's good to be here. I said it's a cold morning and then all the Minnesotans burst out laughing, right? This is normally when you're in shorts. This time next year, everybody will be in shorts and singlets getting warm. So good to see everybody. I'm from Australia. It's not so warm for me.
daawadayaal dhageystayaal waxaa sidoo kale goobtaasi aan kula kulmay Cabdiraxmaan Aadan oo aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaasina ka shaqeeya waxbarashada gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ka soo qayb galay barnaamijkan Run to Unite Cabdiraxmaan dareenkaaga siduu yahay sidee u aragtaa barnaamijka maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa bahdiinaan waxaan ku radaa miidiyada Soomaaliyeed kaalinta aad ka qaadanaysaan dardargelinta iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed maanta Run to Unite waxa weeye waxa soo qabanqaabiyay ARC oo iyadoo ah hay'ad faa'iido doon ahayn ka fadhigeedu yahay dalka Soomaaliya waxaan isugu yimid ummadahan la deganahay iyo ummad fara badan oo waayeel dhalinyaro hooyo aabe isugu jirta ee Soomaalida tartankaas oo loogu ordayo sidii lagu caawin lahaa ama wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed sidoo kale dahabshiil ayaa iyadu wax kasta oo la qabto intoo kale ku daraysa waana arrin muhiim ah in laga qayb qaato run ahaantii maantana sharaf bay ii tahay anigoo qof Soomaali ah inaan ka qayb qaato orodkan taariikhiga ah ee maanta lagu kaalayo ama lagu caawinayo dalkeena Soomaaliyeed magacayga Furtuun Sharaf leh from Rochester Minnesota maanta Run United aan ka soo qayb galay to meet Abdi Bile and United oo intiga loogu talagalay masha Allah beautiful so far والله وارن وين وارن مال كسر الله وصبحه Soomaalida inay United noqoto meel kasta adduunka joogaan maantana Minnesota joognaa waxaan isku daynaa inaan baraarujino dadka iyo carruurta iyo kulli loo ordo Soomaaliya macnaha xoog u taagan tahay in la wada kaco oo Soomaaliya loo wada kaco orodkan wuxuu u taagan yahay in la ordo Soomaaliya Cabdi Bile uu nala joogaa oo heerowgeena anaa qaraaca Cabdi Bile maanta anaa ka budiyay macnaha adaa ka ordi reemiyaa leedahay
si ballaaran bay dadku uga soo qayb galeen waan ku faraxsanahay sidana la iskugu xidhan yahay aan walibana maalin dhaxan ay jirto بسم الله الرحمن الرحيم والله آدي صالح دنيا لي الصومالي بابليك راديو آد بقوم محسنتين حفلتنا أنا كسوق بقشين وهاد سنة جرودي اللباد tartankii loogu ordaayay mataqaanaa har in maarta Soomaalida lagu mideeyo oo sponsor gareeyay mataqaanaa hay'adda ku taala Minnesota American Refugee Committee waxaana la jooga Cabdi Bilaa Cabdi halyeegii Soomaaliyeed oo oryahanka ahaa oo 1987 ku guuleystay 1500 mitir marka waxa weey aad iyo aad bay farxad noogu tahay waxa maanta isku yimid jaalida Minnesota oo dadka mataqaanaa Minnesota ugu nimid oo la deganahay ummadda Soomaaliyeed tartankan oo la ordayo oo macnihiisu yahay in dadka Soomaalida lacag loo rees gareeyo oo wadankii lagu caawiyo iyo in dadka Soomaalida iyo dadka Minnesota degan ay isdhex galaan oo ay mataqaanaa aan la hilmaamin wadankii aan ka nimid asalkeen hore waa tartankii labaad waa sanad guridii labaad midaan wax uga duwan tahay waxa weey we have a good turnout dad badan ayaa noo yimid alxamdulillah rabbil caalamiin because waxaan la jooga halyeegeeni Cabdi Bilaa Cabdi aad baan ugu mahadcelinayaa mataqaanaa dahabshiil waxaan kala aad mahadcelinayaa mataqaanaa hay'adda UCare iyo dadka mataqaanaa dhammaan garab istaagay oo maanta baasbal ka dhigay oo macquul maanta ka dhigay inay arinta noo suurta gasho arintan waxa loogu talagalay waxa weeye in Soomaaliya la isku keeno oo mataqaanaa diilahayd oo mataqaanaa waana second orodkii labaad weeye aad baa u mahadsantahay Saalax فرحت بدو وجيده وسبيش Soomaalida oo dhan ka muuqata siiba waayeelkeena and ayaka way excitement ingaliye yani magaca Soomaalinimo ee Cabdi Bilaa markay arkeen and haliyay aad loo yaqaano oo yani Soomaaliya bilado iyo magac dheer u soo jiiday markay arkeen way dhiirigelisay maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة إذن كون السلام يا أمة الصوماليات ساعة هلكن وحاسمين الصوماليين مريكا كسبة الصومالي ما هذا مريكا نسكوا تاعي لكن وحا هلك الصوماليين ضد فربنا أميجنا عبد البلع عبدي أيام ماركتين هو جامري وأرديني ساعة سدح سجال كسمح من الله يا هدير صالح وآدي أد بوما سنتهاي إن المادة قابتن تمياديت سيا كفر قريشيد بندقن عجيب كا أداركيسي dadka isugu yimaadeen oo reasonka la isugu yimaanay tahay si loo caawin lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhibaataysan wadankeena ku dhibaataysan wallahi waxaan ku faraxsanahay Soomaali badan ay isugu yimaadeen laakiin waa adiga isto Saddam Daira Ras maanta sidee u aragtaa number 1 inaad gasho waliba barnaamijka Ranty Night ku faraxsanahay maanta munaasabada sidee baa u aragtaa iyo waliba adigoo galay number 2 aniga walaalkay ayaa ku galay walaalkay number 1 aniga number 2 my name is Ara I come from Oromia Somalia aniga Somalia ordaya waa jeclahay Somalia wardo inta everybody markasta waxaa tahay gabadhii ugu horeysay oo soo gudubta line-ka finishka marka sidee baa u aragtaa dareenkaaga siduu yahay how are you feeling dadkaaga u orday maasha Allah magacaa hindiya ayo hindiya muday thank you ya marka ma islahayd maanta in orodkaaga ilaa ay heerkan u gaarsiisan yahay iyo caafimaadkaaga iyo in maaragtay intaan aad dhamaysan karto orada maya marka hadda maxaa dareenkaygu aad u wanaagsan yahay community-gan Soomaaliya iyo community-ga ka soo Minnesota aad baan u soo dhaweynayaa orodkayaguna aad buu wanaagsanaa in doorana waa soo orodnay ilaa 5 mayl oo dhow baan orodnay On behalf of the Dahab Shield Network across the globe, 1,000+ agents, some of them who some of them who send remittances, and some of them who pay them in a very designated areas across the globe. We want to
contribute to IRC's greater costs and match every dollar they receive as a contributions. Public Radio, إذاعة برشاد Somali Public Radio, SKR.FM.